arrinta runtii yaabka ahayd waxay ahayd dadka deegaankaa joogay ee meelaha dad baa dee noo yimi ma fara badan waxay nagu yidhahan gaarigaas 20 cisho halkaa yaal marka arrinta isweydiinta mudan waxa weeye dee dadku markay arrintaas oo kale arkaan saldhigga booliiska ugu dhaweyna ku report gareeyaan halkaa waxaasaa yaalla waxaana hawsha inta badan sameeya waa inamada yaryar ee baabuurta maydha ayay u badan yihiin kaa beriga hore aanu qabno kale waa inamada yaryar ee baabuurta maydha oo kale ahaa tuug waaweyn oo jirtaana way jirtaa kuwa maartay ay ku shaqaystaan marka waanu ka digaynaa muddooyinkii u dambeeyey magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaa ka bilaabantay xadidda gaadiidka kuwaasi oo laga xadayo dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Burco arrintani ayaa ugu ku ah magaalada Burco sidoo kale waxa warwar ku abuurtay bulshada gaadiidleyda ah ee ku nool magaalada Burco Abubakar Carab Ilaaye iyo Cali Ibrahim ayaa leh waxa ay ka mid yihiin dadka gaadiidleyda ah ee gaadiidkooda laga xaday telefishanka ayaa wax ka weydiiyay qaabka gaadiidkaasi looga xaday gaariga waa laga xaday 25 September bishii hore dhowr ilaa 25 baan subaxii markaan si gaariga ku shaqo tag baan waayay gaariga goor habeen baan waxaan dhigay meel gaaro baabuurta lagu ilaaliyo suuqa dhexdiisa xaafadda suuqa ku taa markaa meel suuqa dhexdiisa bay ahayd oo meherado badan iyo wax badan ku yaalaan subaxii markaan si ku shaqo taga baar 6 subaxnimo oo wax yar la ayaan gaariga meeshii ka waayay adigu markii waxaan la hadlay ninkii gaarka nin gaarigii maxaa ku dhacay wuxuu igi xalay maan joogin hebel baa jooga bal hebel la hadlo hebel kalaan la hadlay markiisa baa xidhan waan iska tagay adigu gaarigii markiiba biliiskan ku report gareeyay adigu gaarigii raq iyo ruux meel la mariyay waan weynay muddo 20 cisho ay u dhaxayso ayaa subax anigoo salaad subax ka soo baxay leela soo hadlo lambaraan garanin baa igu niyo waxaan dul joognaa meel koonaha magaalada gaari baa halkan yaala gaariga lambarkaaga ayaa waxaanu ka helay waraaqa saad lacagaha la dirdiray iyo waxaas markii lacagaha dirdiraan garaanay marka gaariga mid garanaysa calaamadaha suumaysan gaara laga xado nooca way isaga calaamadahan isaga leh halka joogtaan baan idinku imanaya marka iskuulka Ilayska ama Cabdi oo xirsay shishadiida eeriyadaas buu yaalay meel cidla ah oo garan waa dhexdiya arrinta runtii yaabka ahayd waxay ahayd dadka deegaanka joogay ee meelaha dad baa dee noo yimi ma fara badan waxay nagu yidhahan gaarigaas 20 cisho halkaa yaal marka arrinta isweydiinta mudan waxa weeye dadku markay arrintaas oo kale arkaan saldhigga booliiska ugu dhaweyna ku report gareeyaan halkaa waxaasaa yaalla marka laga warhayo dadkaasi may u sheegin saldhiggii gaariga 20 cisho halkaa yaalay gaariga waa la furfurtay dee saasa wax u dhaceen marka runtii waxaan u mahadcelinayaa cid kastoo da igala shaqaysay oo biliiska runtii anigu si gaar aan ugu mahadcelinaya way ila shaqeeyeen inkastoo dee aan iyaguna wax xooga helin dee muddada anba aan xogta lahaa haddana laakiin intii dee orod ahayd ay la ordi karayeen way la ordeen marka waxaan si guud bulshada ugu baaqaya in deniyo hawshaas way soo korodhay magaaladii waa dhacdo ku soo korodho fara badan imika intaan hawshaa ku jiray ilaa 3 gaari oo la xaday baan yaan la kulmay dadkii laga xaday marka dhacdo soo korodhay oo weyn weeye dee in biliiska iyo ciidamada ammaanka iyo bulshadu baraarugsanaadaan oo si gaar ah looga warhayo loola socdo arrintaas magacaygu horta Cali Ibrahim ayaan le gaariganna waxa laga xalay maalin khamiis baa laga helay subaxnimadkeedii 6 subaxnimo oo masaajidkan aqaayada ku tukaday gaarkan ka yara ka haystay guriga hortiisa aan dhigtay intii koob shaaha aan sugayay ay gabadhu igu tiri war gaarigii ma qof aad siisay dabadaan u soo baxnay gaariga adigu waan waayay waxaan ka report gooyay saldhigga tooli baan ka report gareeyay kadibna ciidamadoo dhan baan wargeliyay ilaa qaybtan socday gaarigii adigu baadi goon weyn ayaan u galay ciidamada oo dhan baan wargeliyay 3 istabood hawdka baan tagay kadib adigu tuhliyo dadaal badan oo aanu galay waxaan gaariga ka helay dawladda hoose dixda ka dambaysa iyadoo la dhigay lagana furtay baytariga iyo koorkii waxaan u ka wargelinaya shacabka Soomaaliland iyo dawladaba inay dadaal ka badan ay sameeyaan oo tuugadan soo burtay ee gaariga waa kii 7 baan u malaynayaa ee ay xoog saaraan waayo baabuurta gabigooda waxaan ka helay magaalada duleedkeedaan ka helay wax 1 kiiloomitir u jira geesta kale taliyaha booliiska gobolka Togdheer gaashaan la sare Cabdi Muuse Cabdullaahi ayaan wax ka weydiinay inay sharciga hor keeneen dadkaasi gaadiidka xadaya maadaama iyagu amniga ay mas'uul ka yihiin magaalada Burco way ku cusub tahay waa intan labadan bilood u dambeysay baabuurta la qaataana inta badan waa baabuurta yar ee cadayaasha la yiraahdo furayaal waxay sitaan dadkaasi midalan wada furaya baabuurta inta badan baabuurta yar yar ay ku furayaan waanu soo qabanay berigi dhexdii ahayd mid ka mid aanu soo qabanay macal furiisi waanu qabanay maxkamadda la geeyay oo jeelku ku jira ninkaas laakiin waxa jira de kulay riyaadad iska baxsanaya imika bishan u dambeeyay 2 gaari ayaa jiray oo la qaatay 2 gaari waa la helay waxana laga furfurtay xoogaa midna waxa laga furtay indhii midna adu taayiriyo waxa laga furtay laakiin waanu helay baaristiina waanu wadnaa
gacantaanu ku haynaa tallaabo adagna waanu ka qaadayna haddii alla yidhaa raadkaa dambena naga lumi maayo waanu heli doonaa haddii alla yidhaa laakiin waxaanu uga digaynaa dadka waxaa samaynaya inaanay meel la nagaga gabanayn oon tallaabo adag ka qaadi doono waa maxamed bulshaawi wararka telefishinka mm shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile in ka badan 14,000 oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 Mareykanka ku shubo $0.5 oo kaliya oo isticmaalaya adeegga e-dahab